السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارته سو دوادا مركله برنامج كله iyo Kista TV. Barnaamijkeena maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa xagee uu maraya aqoonsi u raadintii maamulka Somaliland. Waxa kale oo aan ku eegi doonaa wadanka awoodda iyo xilliga iyo timeka iyo energy-ga faraha badan gelinayo in ay Somaliland aqoonsi buuxa ay hesho. Iyo waxa ay uga bedelan doonaan haddii Somaliland la aqoonsado. Aan ku bilaabay wadanka Imaaraadka ayaa waxa uu ku bixinayaa energy iyo time fara badan sidii uu ugu heli lahaa maamulka Somaliland aqoonsi buuxa oo fadhiya. Maamulka Somaliland ayaan hadda haysan wax aqoonsiya oo formal ah inkastoo ay jiraan wadamo iyo dawlado fara badan oo xiriir fiican ay kala dhaxeeyaan oo ay waliba barkood ay xafiisyo ku leeyihiin inkastoo aysan aqoonsi buuxa siinin wadamadaas Somaliland. Haddaba Imaaraadka ayaa wuxuu doonayaa inuu arrinkaas wax ka bedelo. Waxa uu deal ka soo dhameeyay dalka Mareykanka. Haddaad maqlayseen baryahan Trump ayaa aqoonsanayo Somaliland. Dealkan waxa ka dhex shaqeynayo Imaaraadka oo time iyo energy ba gelinayo. Imaaraadka isaga ujeedkiisa haddii aan fiirino waxa waaye in uu ka hortago influence-ga ay leeyihiin Yemeniyiinta maadaama sida la sheegay dekadii Sanca intuu ka soo guuray dekada Berberana uu 400 milyan lacag in ka badan uu geliyay wuxuu influence-ga Yemeniyiinta ay isaga ama saameynta ay leeyihiin Yemeniyiinta ayuu isaga wuxuu rabaa inuu qadaadka kaga istaago. Somaliland marka waxa uga dhex muuqatay ifafaale ah in ay meel strategic ku taalo muhiimna u tahay geeska Africa. Ahaatee saaxiibadiis Israa'iiliyiinta ama Yahuudda ayaa waxay sidoo kale ku cadaadinayaan in aqoonsigan uu la raadiyo Somaliland si ay Israel uga hesho saldhig military oo ay ka difaaci karto maraakiibteeda isaga gooshaya dunida dacaladeeda oo u socda Israel. Waxa ay sheegtay Israel in inta dagaalkii uu bilowday Yemen iyo dagaalkii ka socday Gaza la hor istaagay maraakiibta u socda Israel ay cunaqabateyn ku soo rogeen nimanka Xuutiyiinta ah oo dhaxda ay u galeen maraakiibta u socda wadanka Israel. Haatee marka waxa ay raadinayaan in Yahuudda ay ka hesho saldhig military meel ay kala dagaalami karto nimankaas Xuutiyiinta ah oo cunaqabateynta ku soo rogay wadanka Israel. Waxaana u muuqatay markaan in ay Somaliland aqoonsi u raadiyaan. Imaaraadka lacag fara badan buu gashtay meesha Yahuudana cunaqabateyntaas ayaa saaran. Marka waxa ay go'aansadeen in iyagoo isku dan ah Imaaraadka iyo Israel in ay u raadiyaan aqoonsi Somaliland si ay uga bedeshaan base oo ama saldhig military oo ay iyagu ay degaan. Hadda waxaa la sheegayaa ama warbixintan ay qoraysaa in jasiiradii Soomaaliya ay hore u lahaan jirtay hadda Yemen la wareegtay haddana uu ku habsaday Imaaraadka ee Qatar ay wada joogaan ciidamo ka socda Yahuudda iyo kuwa ka socda Imaaraadka kuwaas oo isla howlgala. Marka arrinkan waxaa la sheegayaa in project 2025 oo uu waday madaxweyne Donald Trump ay ka mid ahaydba in aqoonsi la siiyo Somaliland. Sidaas awgeedna aqoonsigaas la siiyay awgeedna Mareykanka uu base isagana uu ka helo Somaliland taas oo uu kaga hortagaya baa la yiri saameynta weyn ay ku yeesheen Djibouti Chinese-ka. So Mareykanka dambu wata oo China ayuu rabaa in uu kula baratamo saameynta uu ku yeeshay influence-ga xoogga leh oo uu Chinese-ka ku yeeshay Djibouti buu rabaa in uu Mareykanka counter gareeyo. Yahuudda waxay rabtaa in maraakiibteeda u socda dalkeeda Israel in ay u hesho amni oo marinka ay ka cunaqabateen Xuutiyiinta. Imaaraadka wuxuu rabaa in uu isagana maadaama saaxiib dhow uu leeyahay Mareykanka iyo Yahuudda dulaal fiicanna uu yahay waxa uu ujeedkiisa uu yahay in uu isagana investmentigiisi secure u noqoto dal la aqoonsan yahayna ay Somaliland noqoto oo amniga iyo wixii u baahnaa oo kale u sugnaadaan oo lacagtiisa lacag qasaartay aysan noqon. Marka nin walba dan buu wataa Somaliland waxa meeshaas oo dhan uga dhex muuqda in ay hesho
aqoonsi waxaa marka hore gadaal u socda oo energy-ga iyo time-ka faraha badan gelinayo aqoonsiga Somaliland in loo raadiyo imaaraadka oo galgal leh waxaad ogtihiin in dhowr usbuuc ka hor World Government Summit uu madaxweyne Cirro ku marti qaaday imaaraadka waxaana uu madaxweyne Cirro ka faa'iiday in uu helo platform oo adduunka dhan uu isugu imaanayay oo 36 wadan ay ka soo qayb gashay asagoo oo wadan ahaan loo soo dhaweeyay in uu helo platform uu adduunka kale uga dhaadhicin karo in uu aqoonsigiisa iyo waxa la yiraahdaa elevator pitch ama hadalkiisa uu ku gudbisto so arrinkan waxa ka shaqeeyay imaaraadka oo suurtageliyay waxaana ujeedkooda oo dhan uu yahay in ay u helaan aqoonsi Somaliland si waxaan ka socda Sudan iyo Yemen iyo Eritrea iyo qolyahan imaaraadka ka soo horjeeda oo dhan meeshaas qadka uga saari lahaa influence-gan kale oo anti imaaraatiga ah oo ka socda gobolka iyo Horn of Africa intaba so Somaliland aqoonsi bay raadinaysaa Mareykanka base buu raadinayaa imaaraat saaxiibadiis Israel iyo base masaldhig ciidan oo ay kaga hortagaan xuutiyiinta u raadinaya waxaana meel fiican marayo baa la yiri in Trump lagu qanciyo in uu aqoonsi buuxa uu siiyo oo uu noqdo waliba imaaraadka isagoo wadan ah buusan aqoonsi bixinin first country oo aqoonsada Somaliland in uu noqdo kadibna maaragtay hadduu marba Mareykankii ugu weynaa adduunka uu aqoonsado qolyahan kale way iska soo raacayaan wax dambi u qabsanaya ma jirto maxaa marka ka dhalan kara waa journal halkan ayaa qoraayo watan baa la yiraahdaa journalka maxaa ka dhalan kara baa la yiri haddii aqoonsi uu siiyo Mareykanka muxuu isaga ku weyn karaa aqoonsiga Somaliland uu siinayo wuxuu ku weyn karaa baa la yiri in xiriirka wanaagsan oo kala dhaxeeya Turkiga uu xumaado Turkiga iyo Mareykanka waxaad ogtiin in NATO ka wada mid yihiin Turkigana waxa uu saaxiib dhow leeyahay baa la yiri Muqdisho waxa waa sida ay u qoran yihiin wax aniga aan hindisaayo maaha waa sida ay u qoran yihiin sidee taan baan ku soo gudbinaya Turkiga wuxuu aad ugu xiran yahay baa la yiri Muqdishona waxay aaminsan tahay Somaliland inay tahay gobol ka mid ah Soomaaliya ha ahaatee xiriirka Mareykanka iyo Turkiga waxa la yiri uu xumaan doonaa haddii Mareykanka uu ku dhiirado in uu aqoonsi buuxa uu siiyo Somaliland asaga oo ilaalinayo danaha imaaraadka iyo danta wadanka Israel waa midda labaad waxa la yiri Turkiga wuxuu ku qarash gareeyay ama oo ku maalgashaday aan yiraahdo qarash gareeyay oran wuxuu ku maalgashaday Soomaaliya lacag ka badan 1 bilyan oo dollar baa kaga jirta marka in la isku hayo Soomaaliya baa isaga sida uu arko dantiisa ay ku jirtaa oo Soomaaliya hal ay u ahaato oo wuxuu la shaqeynayaa baa la yiri siyaasadda Muqdisho oo iyadu aaminsan Somaliland inay tahay gobol ka mid ah dalkeeda waxa kale oo xumaan doona baa la yiri xiriirka ka dhaxeeya Masar iyo Mareykanka so Masar iyo waxa Egypt ay yiraahdeen iyo waxa isku xiran oo dhan ka soo wada jeeda Turkiga oo labadaba ay ka soo horjeedaan in Somaliland la aqoonsado imaaraadka Israel iyo Mareykankana waxa ay isku xulufo weyn meel bay ka soo wada jeedaan waxayna rabaan in Somaliland la aqoonsado si danahooda ay uga fushadaan oo ay maartay bases iyo waxa ay ka rabaan ay uga helaan imaaraadka wuxuu rabaa inuu secure ahaado Turkiga iyo Masarna waxay rabaan dalka Soomaaliya in uu hal si ahaado oo isku dhaganaado oo aan la kala gogoynin dalka so meeshan waxa kale oo ku jira China oo isaga naftiisa aan dab yar shidaynin oo aan ogolaan doonin in Somaliland la aqoonsado maadaama Somaliland ay saaxiib dhow la tahay Taiwan marka inta dambe waxaad ogtahay ma ku sheegaa laakiin reportka sida uu ku soo baxay wadankan imaaraadka ayaa dabada ka riixaya arrinkan waxaana uu ka dhaadhacsiiyay Trump iyo Mareykanka inay dan ay leedahay Israel ay ku jirto aqoonsiga Somaliland isaga Mareykankana waxa dan inay ugu jirto in influence-ga xooga badan ama saameynta xooga badan China uu ku leeyahay geeska Africa in looga hortagi karo kaliya in Somaliland la aqoonsado marka halka ay wax u marayaan Somaliland wadanka
dhaqaalaha iyo timeka iyo energyga ku bixinayo waa imaaraadka ayaga naftooda ma dadaal yara laakiin waxay u baahan yihiin in saaxada adduunka la hor keeno si ay u gudbistaan codsigooda iyo ay u sheegtaan ay u helaan meel ay platform ay ka gudbin karaan fikradooda ah inay gooni goosad u istaagaan oo waddan kale ay noqdaan inta ayaa halkaas u marayaan waa idin salaamahaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu